ayadoo maanta guud ahaan dalkani Kenya fasalka 8aad u fariisteen ardada imtixaanka shahaadiga ah ee loo yaqaano KCPE-da ayaa waxa ismaamulka Wajeer ka qayb galaya sanadkan in ka badan 5,000 oo arday kuwaasi oo ku sameynaya 150 xarumood. subaxnimadii hore ee saaka ayaan booqday xafiiska gudoomiyaha Wajeer halkaasi oo laga rarayay warqadda xisaabta oo ahayd maadadii ugu horeysay ee ardada u fariistaan. The container was open and it was found to be firm and safe. I must say that this is a vast county with very difficult roads. I think that is known. It's 56,000 square kilometers. That is the area of Wajir County. And the schools are spread all over. There are 151 centers. There are over 5,432 candidates who are sitting for the exam. 40% of them are girls, 60% are boys. So we are almost getting to near parity in this particular instance. And I am glad to report, given the brief that we have here, is that all centers examinations are being administered as is required. sidoo kale waxaan booqday qaar ka mid ah iskuulada waxaana mas'uuliyiintu ku sugnaa wax ka weydiiyay habka uu bilowday imtixaanku. iskuulka maamulaha Wajir Primary School sanadkan 2018 KCPE-da maanta si rasmi u bilaawday wadanka dhan waxaa noo diiwaan gashan 132 arday oo 9 ay yihiin wiilal gabdhana ay yihiin 42 runtii waan iskuulka haddaan ka sii hadlo waxaa kaloo center kale ku taala oo adult private school oo ayagana hagaajinayaan adadooda waa 37 sanad walba KCPE la qaat ayagana way qaataan laakiin sanadkan way bateen sanadka hore 17 ay ahaayeen muhiimadda KCPE-da la arkay certificate soo way soo bateen 37 ayaa maanta qaadanaysa alxamdulillah maanta ardayda qaadan haysa 132 si fiican u hagaajinay aan u diyaarinay oo maanta imtixaan waxaan ka sugahay sanadka hore markii la soo fiiriyo kan bay ardada aad ugu wanaagsan yihiin maxaa waxyaalihii oo cheatingka ama ilmaha lagu siri jiray waxa la dhan waa la soo koobay soo ilmuhu marka waxay noqdeen inay buugtooda akhristaan waxyaalihii mobile-ka la imaan jiray oo ilmaha ay dhihi jireen maalinta examination-ka wax noola sheegi jiray 2 sano la soo dhaafay ilaa sanadkan waa la joojiyay soo hadda marka waxaa waaye carruurtii si fiican ay u diyaarsan yihiin. isku soo wada duubo hablaha ka qayb qaadanaya sameynta imtixaankan ayaa ismaamulka Wajeer u dhigma 40% marka la barbar dhigo wiilasha. Xasan Mukhtaar Axmed Waayeelka warbaahin